السلام عليكم ولا ليال وفاضل قاسم دايب سود هذا والله هويو لأن هذا وافتين لأن إلهي هويو إن كان جنة كسوابي لبكا إنك صومرين إلهي وقلنا حريص ما أنت ماشي اللي جوجا لما جوج لين أي كلا أنتوضه marka runtii markasta oon haystaan aan maqlo aadan ugu qashuucayo aan ugu ooyaa waxayna kuu muujinaysaa runtii jacaylka aan hooyooyinkeena u qabno waana jacayl oo universal adduunka meel kasto qof kasta aad la hadashid hooyadiisa saas u jecel yahay yacni qofka adduunka ugu awooda badan leh waa hooyada adduunkan awoodda ay leedahana lama soo koobi karo awoodda ugu sarreysa adduunka hooyaa leh waxayna ku leedahay dadkan aad arkaysid adduunkan isgarab yaacayo ayadaa ka dambaysa hooyo ilmaha ayadaa kala horumarisa ayada ayaa ilmaheeda kala hormarisa hadduu taas shaki kaaga jiro ama aad maaragtay aad aaminsanayn nolosheedaan kula qaybsanaya caawa in yar oo aan kaaga sheekeynaya awoodda ay hooyo ay leedahay aniga waxaa i dhashay hooyo 11 ilmood ka dhinteen cudurro yaryar oo la daaweyn kara ayagoodaas iyo 11kaas ilmood ay uga dhinteen hooyo la yaqaano oo magac leh oo waxay ahayd karti leh oo runtii maanta meesha aan taaganahay ilaahay ka sokow hooyadeeda ayaa iganta awoodda ay lahayd maxay tahay awoodda hooyada ay leedahay maxay tahay hooyo ayadoo lacag leh ama hataa haddayna lacag lahayn isku awood ayay leeyihiin waxayna ku leeyihiin sida ilmahooda ay u korsadaan u soo kobciyaan dad lacag la aniga kama dhalanin aniga aabbayga anoo yar ayuu naga tegay waxaa soo korsata hooyo oo ay korisaan ah waxayna markasta i weydiin jirta faaduma markaa weynaatid maxaa rabtaa inaad noqotid markaa weynaatid hooyo maxaa rabtaa inaad noqotid markaasaan waxaan ku dhihi jiray hooyo markaa weynaado waxaan rabaa secretariya inaan UN-ka ka noqdo waagaas shaqada ugu sarreyso ilmaha aan la soo koray facayga waxay ahayd qof inuu secretary ka noqdo UN-ka iguma ay qoslin ima dhihin war waxaas maxay yihiin iska dhaaf waxaa wax lagu hadla ma ahan way i dhageysatay waxay i tiri ma waxaad rabtaa UN-ka inaad ka shaqaysid waayahay faaduma sabti kasto aniga iyo hooyadeyda ilaah u naxariisteen taxiyaan fuuli jirnay waxay ku dhihi jirtay taxiga nabad islii intuu naga soo wado ayuu wuxuuna keeni jiray UN-ka markaasay waxay dhihi jirtay hooyo fiiri gajaalkaas ma u jeedaa UN-ka maalin maalmaha ka mid ah waad geli doontaa meeshaasaad ka shaqayn doontaa markaan dhaho hooyo sida loo akhriyo oo loo qoro hataa si fiican ma aqaano 14 sano waagaas jiraa waxay dhihi jirtay ma aqaano ma yeeli karana ma dhihi kartid wax kasta oo maskaxdaada aad gelisid waa suurtagal waa suubin kartaa ee hooyo fiiri ganjaaladaas fiiri maalin maalmaha ka mid ah waad geli doontaa haye faaduma meeshaasaad ka shaqaysaa xagee rabtaa inaad ku noolaatid hooyo waxaan rabaa meel Spring Valley la yiraaha ay cadaanka degan yihiin inaan dego taxiga waxay dhihi jirtay nabadna marsii Spring Valley aan soo mari jirnay Spring Valley waxay ku taalaa xaafado ka mid ah oo Nairobi ku yaala markaan meesha soo marno
waxay dhihi jirta Faadumo xagee rabtaa gurigee rabtaa inaad degtid guri yaroo compound ku jiri jiray ayaan farta markasta ku fiiqi jiray oo dhihi jiray gurigaas ayaan rabaa hooyo maalin maxkamada inaan dego markaasay dhihi jirta Faadumo si fiican u fiiri gurigaas adoo degan ayaad arki doontaa markaan isku dayo inaan dhaho maya hooyo waxay dhihi jirta maya si fiican u fiiri maskaxda gasho ku riyo maalmaha kamida insha Allah meeshaasaad degi doontaa haye Faadumo UN-ka ka shaqaysaa gurigaasaad degan tahay xagee rabtaa inaad ka adeegatid nakumaadan ka adeeganaya number C haye Faadumo UN-ka ka shaqaysaa gurigaas Spring Valley aad degan tahay nakumaadaad ka adeegataa xagee rabtaa shaah inaad ka cabtid hooy Sarit Center nagey Sarit Center Faadumo UN-ka ka shaqaysaa Spring Valley aad degan tahay nakumaadaad ka adeegtaa shaah Sarit Center ka cabtaa sabdi kasto aniga iyo hooyadeyda sabdi kasto ilaaha u naxariistay saas ayaan yeeli jirnay waxay idhi jirta Rio Faadumo Rio fiiri arag waad suubin doontaa insha Allah waad suubin doontaa dad lacag badanna ma aan ahayn dad maal badan ama kibir ka batana ma aan ahayn laakiin maskaxda ayay hooyadeeda ilaa u naxariistay ay taajirka ahayd annakana waxay nagu soo kobcisay maskaxda inaan taajirka noqonno oo aan ogaano aan aaminno waxaan rabno inaan noqon karno aan suubin karno hooyadeeda waxay ahayd dadka la yiraahdo dreamers a dream maker ahayd way dream gareyn jirta dadka riyooda Soomaalideena markaan rabno qofka niyada inaan ka jibno ama aan niyada ka jibno ama aan ka dilno waxaan dhahnaa waa riyoonaysaa in la riyoodo waa loo baahan yahay sababtoo ah wixii haddaad ku riyoonin see ku arkaysaa aad ku ogaan doontaa aad hami kaaga geli doonaa aad rabi doontaa aad jeclaan doontaa waa ku qasbantaa wixii waa inaad aragtaa maskaxda aad gashataa habeen kasta aad ku seexataa subax kasta aad ku soo kacdaa saasay idhi jirta hooyadeeda the most powerful woman on earth ayay hooyadeeda ahayd aniga waxayna powerful ku ahayd waxayna awood ku lahayd ay maaragtay ay ilmaheedana ku soo korisay in aad riyootid waxaad jeceshahay niyad aad gashatid aad ku dadaashid aadna ka niyo jabin aadna ka caajisin habeen iyo maalin aad daba taagnaatid ilaa aad heshid muxuu ilaahay i tusiyey 93 ooyadeyda in oo Finland la igu keeno anigoo jaamacad soo dhameynayo astaghfirullah waagaas jaamacad hataan bilna caafimaadkan waday waxaan bilawnaa aniga ayada haddana inaan lugeyno anoo islaan weyne gabar weyne ay imaad waa isla lugeyn jirna aniga hooyadeyda jaamacad Kuopio ku taala ayaa markaas soo mari jirnay markaas waxay dhihi jirta Faadumo jaamacadaas muujeedaa maalmaha kamida waa geli doontaa markaas waxaan dhihi jiray luqadda hataa ma aqaano hooy macaan say ku galaa finishkiyaaba i dhibaaye jaamacadaasaan ku galayaa markaas waxay dhihi jirta waad geli doontaaye ma geli kara ma suubin kara ma awoodo ma maqli kara Faadumo fiiri sabdi kasto hooyadeeda tagta markaan ma fuuli jirnay waa soo lugeyn jirnay waa isla lugeyn jirnay waa soo mari jiray jaamacadda intay istaajisay waxay dhihi jirta Faadumo ma u jeedaa jaamacadaas albaabkaas laga galo ma aragtaa maalmaha kamida insha Allah waad geli doontaa fiiri ku hay niyada maskaxda ku hay niyada ii dhisi jirtay ilaahay jannada firdawsa hooyadeeda ha ka waraabiyo hooyadeeda waxay i bartay sida loo riyoodo sida waxa aad rabtid aad u visualize garaysid maskaxda aad u gashitid aad ku soo kacdid kalsooni aad ku lahaatid in insha Allah aad waxaas noqon kartid waxaad rabtid aad noqon kartid meesha rabtid adduunka aad ka dhici kartid ilaahay muxuu i tusiyay jaamacadii ay sheegaysay
inaan galo gabadha ugu horreysay oo Soomaaliya oo qaxooti ah oo jaamacad finish gashay qaxooti ah kana soo qalin jebisay oo Ilaahay iga dhigay Finland qofka ugu horreeyay qaxooti ah oo dumar ah oo jaamacad finish inta gashay ka soo baxday oo Ilaahay iga dhigay say macquul ku noqotay qof bilaabay inuu akhriyo oo qoro asoo 14 sano jira waxaan bilaabay sida loo akhriyo loo qoro 14 sano anuu jira waa markay bilaawday hooyadeed inay tiraahdo waad awoodda waad suubin kartaa waad yeeli doontaa insha Allah waa yeeli doontaa sabti kasto kumiyada ay nafteeda ka soo gooysay taxi intay ku kireyso ay idii jirto Faadumo Riyo nolosha ku hortaalo tan aad ku noolaan doontid ayaan taxi ku mari doonaa aniga adigu waa isla riyoon doonaa labadeena waxa isku keena hooyadaadan ahay ka sokow saaxiibtaadan ahay waa isla riyoonaynaa taxi aan ku maraynaa riyadaada maalin kasto si aad u xasuustid si bari ka maalin markaad ilmahaada meelahaas la maraysid aad u xasuusatid awoodda aad leedahay hooyo markaad tahay ganjaalada ilaahayt oo UN-ka waad geli doontaa Ilaahay waa imarsi meesha ilaahayt Faadumo waad degi doontaa waan degay meesha ilaahayt Faadumo waad ka adeegan doontaa waan ka adeegtay Faadumo meesha ay tiri waxaad ka cabi doontaa shaah waan ka cabay meel kasta ay tiri hooyadeyda Ilaahay u naxariisto hooyo waad mari doontaa waadna suubin doontaa waadna yeeli doontaa Ilaahay wuu i tusiyay inaan maro guusha itri waad gaari doontaana guul kasta ay itri waad gaari doontaana waan gaaray hadda ilmaan leeyahay afaran leeyahay wixii aan ka bartay ayada oo ah ilmahaada inaad niyada aad u dhistid kuwii aan dhalay ayaan jidka soo marsiyaa hooyo macaan markaa weynaad maxaa rabtaa inaad noqotid waxaasaa rabaa inaad noqdo waa noqon kartaa wax kaa hor istaagaya male insha Allah waad yeeli kartaa nakeen nawad istaag arag fiiri arag fiiri arag fiiri fiiri kuriyo taabo kuriyo maalmaha kamid ah run ay ku noqon doontaa insha Allah wax kasta ay tirina hooyadeeda Ilaahay u naxariistay maanta waa iirino riyo kasta aniga ayada aan riyoonay maanta waa iirinoobay hooyadu wax ka awood badan male hooyada nolosha dhan ilmaha ayada gacanta ku hayso hooyo ilmaha ayada kala hormarisa cunuga aad aragtid hormar gaara wax barashadiisa ku fiicanaado oo aad aragtid oo aad ka yaabtid hooyo ka dambaysa ma ana hooyo maal qabeena ama maxaan ku dhahaa ama si kale to waa hooyo ilmaheeda aaminsan og kalsooni ku leh garab taagan markasta niyada u dhista waxa ugu yar aad subin karto waxa waa ilmaha inaad niyada u dhistid hooyo macaan waad awoodaa cunug fiican aad tahay Ilaahayga ikaasiyay ayaa mahadle alxamdulillah hooyo macaan waad gaari doontaa waad subin doontaa waad awoodaa waad tahay ilmaha niyada haloo dhiso ilmaha niyada haloo dhiso cunug hormar gaari hadaa aragtidna waa hooyo taas fahantay ilmaheedana taas ku soo korisay cunuga markuu soo kacayo oo soo kobcayo oo rabo hami uu leeyahay oo adduunka fiirinayo oo kor ilmaha kor ay u fiiriyaan kor u fiirso ilmahaada kor ay fiirinayaan kor wuxuu u fiirinayaana riyo vision ay u haystaa riyo waxa ka maqan le inaad tiraa hooyo riyadaas runay noqonaysaa insha Allah waa awoodaa waadna subin doontaa
wax energy badan oo kaaga baxay ma leh aad tiraahoy waa suubin kartaa you can do it waa ku aaminsanahay anaa kuu taagan anaa xabadka ku garaacanahay waad suubin doontaa insha allah waad yeeli doontaa inaad cheer leader u noqotido aad niyadda u dhisidoo durbaanka aad u garaacdo waad awoodaa hooyo walbana taas waa mid ay awoodo yaa lagugu sheekaynin cunugan cunug lacag la waayo hooyaa soo hormarisayo hooyadiisa maalqabeen aheedo hooyo waxaa la arkaa hataa aan laba dhuruur isku garaaci karin ilmaheeda ay dhaamaan kuwa lacagta loo taajirka ah maxay ku dhaantaa waxay ku dhaantaa cunugaas maskaxda u soo dhista cunuga maskaxda laga dhisaa maskaxda loo dhisaa niyadda loo dhisaa markuu dhaco kale inta laga jajafo waxa la yiraahdaa soco hooy macaan waxba ma ahani markaa dhacdid waa la istaagaa saasaa lagu soo koriyaa ilmahada ma ahan cunug oo kan dharkaasu ka fiican yahay iyo waxyaalaha yariiska oo aan nafta aan lahayn oo waqtiga aan ku dhammayno ma ahane cunuga maskaxda ka dhis foundationka uu ku taagan yahay cunuga dhis haddaad adiga aad awoodin hataa xagga waxbarashada inaad ka caawisid meelo laga caawino oo laga dhisi karo oo laga maaragtay taakuleen karaa jiraan ma fahamte waxaan xasuustaa markaan dadaalo oo aan dadaalayo oon rabo inaan wax barto oo aan ilmahayga intaan soo wato waxaan isku dayay cid Soomaaliyeed oo guriga iska joogtay inaan cunuga u dhiibto oon dhaho lacag aan igu siinayaaye intii aan xanaano aad geey lahay oo luuqadda ay ka dhumi lahayd ama oo iga xanuunsan lahay gurigaad joogtaaye maama cunugaan lacagaan kuugu siisanayaaye bal guriga iigu haya 2 maalin miya 3 maalin camal markii la hayaa waxaa la yiri alla maxaad ugu haynaysaa cunuga naagtaas oo rabto inay horumar gaarto oo adduun bursanaysa naaha u haynina oo maxaan ku dhahaa xanaanada ku soo turto cunug maxaa kaa galay cunuga waa soo wada xanaanadan geey aniguna shaqadeydii aan wataa ayadoo ay saas ay tahayna weli sidii ayaan maskaxda ugu dhisi jiroon dhihi jiray hooy macaan waad yeelaysaa waad suubin kartaa waad awoodaa horumarkaas waad gaari doontaa insha allah ilmaheenan aan qurbaha ku dhalno qaara hadalka ka soo daaha hadalka markuu ka soo daahay waxay dhaheen cunugan oo ma baran karo wax ma baran karo iskoolka caadiga lagu ma dari karo baqbaq waxa la geenayaa meel oo special education oo cunugayga ma special education la geenaha waay bal hala fiiri waa la geey waana u sheegi jiray waan dhihi jiray hooyo meeshaad rabtaa ka dhici doontaa waxaad rabtaa suubin doontaa qoritaanka akhriska anigaa baray markuu heer oo fiican uu soo gaaray waxaan dhahay bas iskoolkan cunugan iskool ka sareeya oo ka fiican uu tagi karaa waa ka soo wada dal kale taangeey iskool caadi oo dhaxgalay wax barasho caadi ilmaha kale tuu la qabsaday intuu la fariistay oo waliba xagga grade-ka iyo wax barashada uga fiicnay maanta hadaad aragtid alxamdulillaah cunugan way cunug shalsaas la lahays ma dhehist haddaan saas aan aamini lahay oo aan ku dayn lahay oo niyadeed aan ka dili lahay oo dhihi lahay maya saana tahay waxa la leeyahay special education hadal ku dhibaayo waa aan dhihi lahay cunugayga maanta meeshuu taagan yahay uu jooga mi soo istaagin lahayn mana soo gaar lahayn muxuu ugu dugan yahay ilmaha kale to waa siga lamid ah special education inta la geli ilaa haddana ku rafaadsan oo ku dhex jira wuxuu uga dugan yahay hooyo meeshan waad ka bixi kartaa waana awoodaa waana ka bixi doontaa insha allah waana ka baxay ilmo badan oo saas oo kale to waxa halka wuxuu ka harsan kali waxa weyn liira waad awoodaa waad suubin kartaa waad yeeli kartaa hooyo macaan ilmaheena aan niyadda u dhisano ilmaheena niyadda aan u dhisano hooyada Soomaalidana hooyo ka awood badan ma leh iyo awoodeeda iska wareejin qof kale iyo gacanta ka saarin yeena niyadda iska dilin ilmaha ay dhashay niyadda ay ka dilin niyad jab hadaad niyad jabto ilmahaada aday ay ka dareemaan ayaguna waxay aaminayaan inayna wiligooda meel gaari doonin
hadalka ilmaha aan kula hadlayna xataa ha ahaado hadal fiican oo niyadda u dhisa hooyo cunug fiicanaa tahay hooyo waad awoodaa hooyo maasha allah hooyo waad yeeli kartaa hooyo maasha allah wuxuu kuu keenay markasta xataa gareedka hataa ku faraxsaneen hooyo macaan maasha allah waa ku faraxsanahay intaan inka fiican waad suubin kartaa waana suubin doontaa insha allah saasay igu soo korisay hooyadeeda aniga ilaha u naxariista saas ay igu soo korisay maantadan adii arkaysidoo meeshaan aan taaganahay 14 sano meelaan ku bilaabo akhris iyo qoritaan oo dad aan saas u lacag badan lahayn oo iska liita aan hanayo iska tuutuugsanayo hadba meelba oo misha ay maarta looga keenayo masruufkooda aan loogeen bil kasta inta tagno aan soo tuugsan jirnay ya ayro isaas ay tahay intaan baxno aan soo tuugsanayna masruuf la soo tuugay wiligay iyo allahay hooyadeeda imay dareensiinin qof faqri inaan ahay maskaxda markasta waxay ii galin jirtay qof ladan inaan ahay aan ladanahay aan roonahay weligayga hadday dhibaato i haysaan ku leeyahay igama dareemaysid maskaxda ii dhisan niyadana waa ii dhisan tahay markastana waxaan aaminsanahay inaan ahay qof nolosheeda kafaymanta ay tahay oo aan dhibaato aan qabin oo taajir lacag kale ma ahan intana taajiraa laga yahay intana waa laga yahay labada meel waa laga yahay maskaxda iyo wadnaha labadaas meelna ayadaa ii buuxisay accountkaas labadaas account maskaxda waa account wadnahana waa account hooyadeeda lacag iiga buuxisay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto hooyooyinkeena runtii ayagoo kaleeto adduunkan ma joogaan mana la arki doono dadku waxaan hana ugu sharafta badan la ugu hooyooyinka fiican adduunka I'm telling you waa markay hooyada ogaato awoodda ay leedahay awooddeedana siday tahay ay u isticmaasho cunugaadoo la sheekaysatid ilmaha aan yasayno aan iska dhaafno aniga waxaan ku leeyahay hooyadeeda ilaaha u naxariisto qof weyn camal ila dhaqmi jirta weligeyga aniga gabar lama saaxiibin walaa naag lama saaxiibin saaxiibteeda hooyadeeda ahaan jirta hooyadeeda ayaa saaxiibteeda ahaan jirta intay ila fariisato ila sheekaysato qof weyn camal ila hadli jirta su'aalaha ay weydiinayso su'aalo qof weyn la weydiin camal intay weydiisan uga jawaabi jiro waa hadli jira kuwa maanta aan dhalayna saasoo kaleeto waa midda ugu yar 10 sano jirtaa maanta haddii ani ayada inta aan fadhino laba habro waaweyn camal aan u sheekaysanaa islaamu waaweyn camal aan u sheekaysanaa si ay u hadlaysaa da artid qof weyn camal ay kula dhaqmaysaa kula hadlaysaa because ilmaha waqtiyaa la siiyaa time la siiyaa waa lala qaataa waa lala sheekaystaa waa lala hadlaa والله وحيالها يكون شيء وحيالها أتكفى إذا سنكرت ما عددنا عنقتها سيريستا أنت information أي هيصو أي كل قيب سنة يسهداد أرتوا يابسا why because ما أنت نام وحي آخر نساء يوتيوب يكجرتا وحيالها أي آخر سنة يسو politics كسي أولا سعتو واد يابسا وحلوكاس مقالة مركو كل جوغو حتى أو كل صعودة وقفوين عمل أدو الله ديست quality time ilma hada waqtiya la qaataa 4 hadeeyin 5 hadeeyin 6 hadeeyin 10 hadeeyin waqtiya loo qoondeeyaa cunug walba waqti gaar ah la qaataa maanta waa adiga baxayno maqaayadaan aadayna ama suuqan aadayna maanta waa adiga hooyo quality time keena waa adiga waqtiyadoodana la isku madara hooyo adiga bari waaye bariyaan israacayna aan aadayna oo sheekaysanayna oo شنامد إسلا تجينا أني أذيك بريان وقت إسلا لنا هايو صدح جارة لي هايو عيارات أمودة عيار معنا واي أبى صدح جار لي واي
واي أوو صدح جور لو دي واي أيه صدح جور لو دي واي خوي صدح جور وحا لو يري قبطة أود إلا ده أود إلا ده مركزتو oon jidadkaas aan maro xafiiskaas maalin kasta aan galo spring valley maalin kasta aan soo maro nokumaad aan soo dhex maro sharid center aan soo dhex maro hooyadeyda 95 dhimatay ilaa u naxariisto meel kasta aan taaganahay ama aan marayo oo aan soo xasuusanayo inaan ayadii jidadkaas isla marnay inay ag taagantahay la mid tahay marmar wallahi waxaan dareemaa garabkayga inay taaganto oo isla soconno because wax aan routine noo noqday oo joogto aan u soo binjirno waa aniyada 95 way markay dhimatay ilaa u naxariistay ilaa hadana meel kasta oo aan maro inay garab taagan tahay ayaan dareensanaa codkeedaan maqlaa da'dan anigoo jiro shaki hataa markuu igalo waxaan maqlaa iyadoo idhaysa maya faaduma deeqo waad awoodaa waad suubin kartaa waana yeeli doontaa hooyo insha allah waa suubin doontaa markaan dhahay xafiis madaxweynenimaan u tartamaya Soomaaliya madaxweynaheedii koowaad oo dumar aan noqon doonaa ay dadka qoslaayeen ayada ma qosleen way garab taagnaad waxay leedahay waad suubin kartaa faaduma waad yeeli kartaa insha allah one day waad noqon doontaa waana noqonaysaa weli spacekaas hataa way joogtaa inkastoo ay ka maqan tahay oo dhulka la dhigay weli way joogtaa ilmahaada si kastaba ula joog long after you are gone hataa markaad baxdid oo aad dhimatid weli codkaada ha maqlaan inaad taagantahay inaad joogtid weligood iyo dareemin keligood inay yihiin yeena ciishoonin ilmahaada never iyo ciishoonin cunug aad dashay uu dhayn alla ilaahayo cunugaas wuxuu iiga hormaray hooyadiisa iga hormaraysa ciishoonin ciishoonin mar kasta oo aan hooyadeeda soo xasuustana ilaahay u naxariistay ilmaha indhaa ii soo istaag wallahi billah tiir ayay ahayd ayna weli tahay foundationka dhan noloshayda foundationkeeda ayay ahayd hooyadeeda ilaa u naxariista even maalintii ay nafta ka baxday 95 up to now weli sidii u taagan tahay foundationkii ay dhistay yaa taagan mana dumi doono weligiisa intaan adduunkan kor taaganahay ma dumaayo meesha aniga aan ka baxayna kuwaan sii dhalayaa taagan kuway sii dhalanaya sii taagan that foundation will always be there ilmahaada foundation u dhis tiir asaaska fiican ilmahaada u subso if anything at all wax kaleeto adduunka waxaad ugu tagtaa noqdaan ilmahaada oo miro fiican kuu noqda noqda ilmo wax kuu qaban kara ayagana wax qabsan kara marka hooyo abaalkeeda lama gudi karo runtii lama gudi karo si kastoo la yeelana waad isku dayi kartaa but you can't do it marka waay aan kuula qaybsanayo nolosheeda aan kuugu sheegayo because waxaan maqlaa hooyooyin dhahayo
ma awoodo ma suubin karo ma yeeli karo cunuga hortiisa waxyaalahaas ereyadaas ku hadla cunugaas adiga intaad hor taagan tahay superwoman uu ku arkaa maanta cunug yar waxaad arkaysaa ku dhahay aniga hooyadeeda wallaahi cirkaasay ay taabanaysaa cirkay taaban kartaa waa aaminsan yahay cunugaada wuu aaminsan yahay cirka inaad taaban kartid superwoman inaad tahay wuu aaminsan yahay cunugaada ha hor istaagin hadhiin ma subin karo lama yeeli karo waxaan ma noqon karaan macquul ma ahan xataa hadda gabdho waaweyn ila soo xiriiro weydiiyo dhaho warheeda hamigaasaa igu jiro nolosha waxaan rabaa waxaas inaan suubiyo halkaasaan rabaa inaan ka dhaco dadaa maalin kasta daba taagano waxay leeyihin ma suubin kartid ma yeeli kartid maxaan dadkaas ku suubiyaa ka fogaaw qof ku dhaha weligaa wax ma suubin kartid spacekaada ha u ogolaanin inuu ku jiro agtaada inuu joogo ha u ogolaanin haddaad awoodid awoodaasaad leedahay inaad iska fogaysid qofkaas ama aad ka fogaatid ka fogaaw qofkaas niyadda kaa dilaya niyadda kaa jibinaya ha u ogolaanin ka fogaaw wuxuu kuugu soo kordhinaya male muxuu kuugu soo kordhinaya noloshaada wuxuu kusoo kordhinaya male horumarka aa gaari lahaydna waa kaa daba jiitamayaayo kuuma ogolo meeshaad u socotay inaad gaarto ama aad tagtid hadduu kuu soo uro ama ay soo urto ama in yar aad dareentid waxaasoo kale inay ka soo uraan ka fogaaw faa'iido oo qofkaas uu kuugu soo kordhinaya noloshaada ama uu kuugu soo oo maarta kuugu soo wuxuu kuugu soo kordhiyo positive aanba jirinba ilmahaadana saasoo kaleeto markii oo fiyooraha soo baxaya biyaha lagu shubaa waa loo naxariistaa marmar qoraxda waa laga soo wareejiyaa marmar qoraxda waa la keenaa sababtoo u baahan yahay qoraxda naftirkeeda ilmahaadana saasoo kaleeto wax oo suna haddaad aragtid toxic dadkaasoo kale sun waaye sunaa la dhahaa toxic people cunugaada ka fogey cunugaada ka fogey qof dhahaya ma subin karti ma yeeli karti cunug xunaa taasaan tahay waa ka daba qaynay ha u ogolaanin maskaxda ilmahaada in laga sumeeyo ha u ogolaanin ka fogaaw cunugaadana ka fogey ilmaheena ilmaha ay la ciyaarayaan hataa waa in laga fiirsadaa cunug saaqida oo aan riyo lahayn aan rabin horumar inuu gaaro oo aan nolol fiican aan rabin inuu ku noolaado ama aanba rabinba meel inuu ka soo baxa cunugaada lugta inuu ku xirto ha u ogolaanin ilmaheen haddaad aragto cunug oo fasahaade ama halaabay cunug asiga nolosha ka dhumay ayaa ka dhumiya asigana cunuga hataa waa la wareystaa hooyo saaxiibkaada iga waran saaxiibkiisa ama saaxiibteeda hataa waa lala hadlaa haye ii waran maxaa what are your plans noloshaada see waaye how do you think of this waa lala hadlaa waa lala sheekaystaa cunugaas haddaad aragta inuu yahay cunugaadii asigaba laba jid oo kala duwan ay ku kala socdaan ilmahaada waa laga soo reebta waa loo sheegaa hooyo cunugaan aa saaxiibka la tahay this is a friend aad u baahan tahay marmar inaad la ciyaartid but not qof aad u baahan tahay inuu role model ku noqdo ama aad waqti badan aad la qaadatid sababtoo ah adoo si kasta u dadaalaysid haddii sun cunugi uu ag jooga ay suntaas lagu soo buufinayo taasaa dilaysa marka ilmaheena ilmo ka furbaysan ma jiraan ilmo ka baarisan ma jiraan ilmo ka dhega nugul ma jiraan aniga markaan iskoolada aan tago ilmaha yaryarka aan la hadlo ee intay igu soo badaan maama faadumo hab intay isoo siiyaan ee tiraado maama waxaasaan rabaa inaan noqdo daktaraan rabaa inaan noqdo maama waa noqon kartaa daktar intaad noqoto weliba daktarka dhaqaatiirta ugu fiican aa noqonaysaa insha allah waa ogahay waa ujeedaa waa noqon doontaa insha allah ilmaha xataa kuwaada hadday ahayn niyadda u dhisa even kuwaada haddayn ahayn niyadda u dhisa cunug intaad la fariisatid indhihiisa aad fiirisay indhihiisa intaad fiirisay aad tiraado hooy macaan indhahaada nafta ku jirtaan u jeedaaye insha allah waxaad damacsan tahay waxa niyadda kuugu jiro khayr hadduu ilaahay kuu geliyo waad heli doontaa insha allah
one day waad noqon doontaa waa suubin doontaa you can do it from da'da 14 ku dhaa aan qoritaan iyo akhris aan bilaabay 89 ciideeda waxaa laga soo tarxiilay Kenya xamar qaxootiyan ku ahay qaxooti ayaan ku ahay markuu dagaalka ka dilaacay oo 90kii aan ka soo baxnay Finland aan imaaday markaan Finland imaanay less than 5 years of education ayaan lahay dugsiga sare iyo dugsiga hoose oo isku jabcuriyo oo isku daray 5 sano ka yar ayay ahayd Finland markaan tagay ma ay dhiin qofkan qof u dhamaato waayo naga daayo iyo waxay ugu dhahan dhageyso ma rabtaa inaan wax bartid ha dhinacaan oo vocational training ka farshaxanka soo mar meeshas markaad waxaad ku soo baratid kadib waad arki doontaa hadii aad rabto jaamacad inaad gashid iyo waad geli doontaa laakiin system kan saan uu kala baxsan yahay waa inaad aad soo martaa vocational training waa soo maray kalkaaliso hoosaan noqdo kadib kalkaaliso sare kadib maxaan ku dhahaa jaamacadan soo galay laba mastereedan ka diyaaray jaamacad finish ah waan soo tagay UN-kii aan shaqo ka bilaabay UN-ka markaan ka soo tagay Finland ku soo noqday PhD-gayga aan bilaabay waxaan noqday qofka ugu horeeyay qaxooti oo Soomaaliya oo PhD-geeda bilaawday inay ka diyaariso jaamacad oo finish ah qofka ugu horeeyay oo Finland oo qaxooti oo dumar ah oo PhD ka bilaawday inay ka diyaariso waa ka soo tagay waxaan tagay Harvard markaan galay oo aan dalbanay dadku igu qoslaan waxa la war qof 14 sano bilaabay inuu qoro oo akhriyo muxuu Harvard ka sheegaya maxaa Harvard ka doonaysaa maxaa ka raadinaysaa meesha laba ma ilmahaada haysatid ما سانسو بيسد ما ساس يشيد قف نيد كور دساي اما كوداي واسو من كرتاي اور اد ماله gabadhayda weynaa tirahay macaan nasiib ay leeyihiin Harvard haddii adigoo kaleeto ay ku helaan nasiib ayay Harvard leedahay adoo kale haddii ku helaan hooyo dalbo waad gelaysaa cunugtayda aniga aan dhalay janaay hadduu leeyahay nafta nagu sumo waxay bixinaysaa 19 sano cunugtayda aniga u tirahay macaan Harvard nasiib ay leeyihiin haddaad meeshaas ugu tagtidee adigoo kaleeto waa dadka loo baahan yahay apply garey tag hooyo waan tagay waan galay those gates waan socday markaan dhahay xafiisaan u ordaya waa lagu qoslay waxa la naagta waalan aawe waxaan dadkeedii aawe maal fariisiyo naagtan waalan sidii nyaanyuur soo dhunta camal oo kaleeto aawe yaani mukulaasha ay iskala camal oo kaleeto war waxaas u binays iyo wax u dhow lama suubin karnaa naga fariiso waa waalata ma fiyo bide quraan ay u baahan tahay 3 joor ah quraan la isaar ووالت ناكت ووالتي وحيت الحفيسان وترتماي مدحوينا ربا إنا نقضو قرآن اللي صار تقف والنا عمل قرآن اللي صار حاسة شيء كم جوك سنين because وحان أوجاي إنان أود إنان حفيس وترتما I did it and why markaan ku leeyahay hadduu ilaahay nafta ugu sameeyo insha Allah madaxweynihii ugu horeeyay dumar oo Soomaaliya ayaan noqon doonaa markaan ku leeyahay don't laugh wajigan si fiican u xasuuso remember si fiican u xasuuso be it 10 15 20 years ana madaxweyne ka noqonay Soomaaliya gabadha ugu horeysay hooyada ugu horeysay Soomaaliya oo madaxweyne noqoto aan noqon doonaa look at me si fiican ii fiiri i xasuuso insha Allah because waan ogahay inay dhici doonto aan it can be done yes idah waa riyoonaysaa in fact waa riyooda you didn't know that haddaan riyoon lahayn heerkan ma soo gaareen never waa u baahantaa inaad riyootid vision inaad yeelatid image inaad yeelatid subax kasta markaa soo kacdid oo rumaysanayso muraayadaada hor taagantahay imagekaas oo ku hor taagana inaad tiraa yes nacam yes I know yes waa u socdaa insha Allah waa u socdaa yeah
It can be possible and it will be. Why? Because noloshayda waxyaalo yaab la mucjisooyin yaab lan soo arkay. It to see anything that you put your mind to waxaad rabto maskaxdaada aad iska dhadhacsiisid inaad suubin kartid. anigu hooyadeeda ilaa u naxariista 95 dhimataan ku dhahay intayna dhiman ka hor waxay baratay sida loo aqriyo sida loo qoro sida loo qoro ayay baratay. Why? waxay rabtay inay itusiso in la suubin karo that it is possible. alla luqadda finishka waa luqadda adduunka ugu adag yaa waxaan baran karaa waxay sheegayaan lama yaqaan waa luqad aad u adag. luqadaasay barato sida loo aqriyo loo qoro. ilma ay u noqon karto ayay u noqon karto galaas la fadhisay ay markay imtixaan la gasho ay bareejeyn jirtay maxaan ku dhahaa good grades ka keen jirta. intaas maxay rabtaa hooyo inay tusiso ilaa u naxariista in la suubin karo that it can be done. taasay rabtaa hooyada inay tusiso ilaa u naxariista. luqadda finish waa qof yaa ku dhalatay meel dari la yiraa dari ceelbuur gadaashaas ay ku dhalatay. Finland ay imaatay oo ay weligeeda xataa ay ku fikirinaysdin waa jirtaa meeshaas kale. asay waxay bilowday luqadooda inay aqriso ay qorto ayadoo da'a. Why? Even at that age weli waxay itusinaysaa waa la suubin karaa waad suubin kartaa waad yeeli kartaa maskaxdaada waaye Faadumo. Let me show you anaa ku tusinayo. wallahi maka khanyar afraxa ku dhashay maka wiila ku dhashay I will show you. anaa ku tusinayo it can be done. wayna suubisay. She did that ilaa u naxariista. waxaan rabaa inaan ku soo dhameeyo hooyo awoodda ay leedahay selfless waayo hooyo wallahi billahi nolosheeda nafteeda hadday quurto ay awooddo inay ku siiso way ku siin lahayd. maanta haddii lasoo hor istaago la yiraahdo adigaa la rabaa inaad cunugaada u dhimato wallahi oo billahi not even 1 second shakig ma galayo. diyaaraan ahay leedahay cunugayga maa lagu badbaadinahaa diyaaraan ahay. take me here I am. diyaaraan ahay anytime iwado cunugale ii dhaaf cunuga ha iga taaman take me instead iwado waa ikana anaa diyaaray. hooyo waa saas. waxay ogeyd hooyadeeda ilaa u naxariistay inaan dhimashada ka baqi jiray. I was very traumatized anigoo yariisa dad dhintay jidka yaalaan arrinkaasaan waxaan ka qaaday buufis waa isku naxay. markaasaa marmar waxaa igu dhici jiray wax panic attack la yiraahdo soo unjooga waxaan dhihi jiray alala waa dhimanaan nafta iga socod waa dhimanaan. markaas inta qosashay waxay dhihi jirtay oo ay cudubilayso. way ogeed saan uga baqi jiray. 95 hooyadeeda markay xanuunsantay waxay u tiri maalin weligeyga kuma aan soo kicin kuma aan seexanin hooyadaada dhiman doonta ilaa u naxariistay. because anigu weyn hataa hooyo giant ay ahayd weligeeda waa dhiman doontaa nolosheeda kuma aan fikirin. qof weyn hataa markaan ahay geeridu waa xaq. never ismaan dhihin maalina imaan doonta oo hooyadaada ay dhiman doontaa dhulka la dhigi doona. never ismaan dhihin sababtoo weligeeda waxay ahayd qof adag oo cad adag oo soo taagan. in my mind superwoman ayay ahayd weligeeda ismaan dhihin. markay xanuunsatay isbitaalka la seexiyey maalina waxay igu tiri hooyo shalay 3 oo sii socotaan dariishadaan iga fiiriyay. dariishada markaan iga fiiriyay waxaan dareemay markaan dad waaweyn inaad tihiin. maanta haddaan dhinto geerideedu waa xaq. dad waaweyn aad tihiin walwal ma qabo waad noolaan doontaan meel fiicanaad ka soo bixi doontaan. dariishadaan iga fiiriyay 3 oo isgarab socotaan
waxaan dareemay diyaar inaan ahay geeri waa xaq waa xita maxaa la oynaysaa geeri waa xaq waxaan dhahay hooyo weli waaye taa weli kuma aan fikrinayo waad caafimaadi doontaa waxaan yaan ka hadlin hooyo please waxaan bilaabay inaan habeen iyo maalin aan ooyo waxay igu tireen no ma rabo ooyin ma rabane waxaan dhahay hooyo weli waaye waa lagu baahaya waa ku jecelnahay weli waaye now is not the time inaad baxdid hadda ma ahan sidii inaan nolosheeda aniga aan gacanta ku hayo kaleeto oon geerida aan ka hor istaagi karo haddii maalintaas la iweydiin lahaa la idhihi lahaa Faadumo diyaar adiga ma u tahay adiga adaa nafta lagaa bixinayo ha ku noolaato hooyada wallaahi ubillahi taala waxaan dhihi lahaa haa diyaar aan ahay ayada le dhaaf aniga iqaado hooyo waa taas oo markay cunugay soo korsato heerkaas ay gaarsiiso cunuga uu yiraa diyaaraan ahay noloshayda inaan ku bedesho tan hooyadeeda ha qaadanin take me laakiin geeri waa xaq way ogeed inaan ka baqo inaan traumatized aan ahay naftaataa intay kasii bixaysaan ku leeyahay aniga ma aan ogeyn iimay sheegin salaadeeda weli waa tukanaysay waxay diidaysay intaas inaan dareemo ama aan baqo ama aan dareemo inay nafta ka socoto mar dambe mar noo lagu imaado isbitaalka ay saaxiibaheeda imaadeen ayay waxay igu tiri islaamka mid ka mid a Faadumo hooyo xaf loo hoostaan dhan waa ka dhimantay ma ogid miya maxaa ka hadlaysaa hooyo waa dhimanaysaa ma qof markuu dhimanayo saan uma dhintay aniga intii aan arkay dad oo nafta u dagaalamay ama sakaraadka lagu dhibo iyo qaylinayaan arki jiray maya hooyo xaf naftaan hoos dhan waa ka baxda hooyo waa dhimanaysaa maxaa sheegaysaa maxaa ka hadlaysaa eedo maxaa leedahay waxaan ku leeyahay hooyo waa dhimanaysaa waxaan bilaabay sas inuu igu dhaco oo aan ooyo intaan ku ordaa wadaadaan keenaya wadaadadaa la keenaya oo joog hooyo macaan waxaan rabaa masaajidka inaan aadan wadaad kuu doono maxaa wadaadka laga keenaya yacni maxaa ma rabtaa inaad dardaarantid intaan ku soo korinayo wax kastoon aan kugula hadlay oon kaala sheekaystay waan kula daardaarmay inta sano aan ku soo korinayo dhabta aan kugu soo sido aan kula fadhiyo aan taxi kula fadhiyo aan kula lugeynayo jaamacada kula hormarayo meel kasta kula fariisanayo Faadumo waan maxaan ku dhahaa waan kula daardaarmay erey kasto afkayga ka soo dhac dardaaran u ahay hooyo geeri waa xaq wax kasta aad itirin waa runtaada waa dardaaran waan xasuustaa everything waan xasuustaa meel ha aadin fariiso Faadumo meeshaan sariirtan geeskeeda fariiso meelna ha aadin habeenkii ani ayada hooyo saasaan soo garab fadhin ilaa u naxariistay shahaadka afka ugu qabo markaan aan dareemo inay iga sii tagayso aan ooyo intay isoo fiiriso ay dhoola cadayso ay saas leedahay maya saas markaan isdhaho waa kaa sii jeedaaye ay ilanta iga soo daato intay indhaha saas furtay waxay leedahay maya inta dhoola cadayso ay maya leedahay do you know waxay subinaysaa hooyadeeda ilaa u naxariistay do you know what she was doing yeah how selfless hooyo ay tahay geerida sakaraadka xanuunka badan ayadoo ku jirto ay nafta saas ugu sii socoto maxay subinaysaa mataqaanaa traumadii aan qabay cabsida aan ka qabay dhimashada ee maskaxdeeda ka tirtiraysa waa ka tirtiraysa yacni waxay ilahayd look no geeri waa xaq
saana waa loo dhiman karaa naxariista leh oo aan xanuunka lahaynna naf waa u bixi kartaa look fiiri look nafta intay kasii socotay she was still teaching me a lesson way ila dardaarmayso ii sheegayso waxay leedahay look nafta baxaysa hataa si sharaf leh oo macaan oo degan ay ku bixi kartaa look ma ahan kuwaad arki jirto ka baqi jirtay oo adii jirto waa baqayaa waa maya no look aniga ku tusinaya it can be done markii ugu dambeysay ay nafta ka baxaysay saddexdeen saasay noo fiirisay waa kor taagneen intay fiirisay indhaha markay saas ka dhigto waxaan dhahay bis alxamdulilah alshukri hooyo markaan okay waayo waan xanuunkii waa ka yaraadayo waxay u egtaa qof hurdada ka soo kacay wax kasta okay waayo indhaha markay saas siiso qof hadda hurdo ka soo kaco kaleta intay fiirisay saas ii fiirisay ay dhoola cadaysa waa qosasha intay dhoola cadaysa anuu aamusan ooyinta markay iga dhammaatay ii aragtay okay inaan ahay un taaganah intay saas ii fiirisay ay dhoola cadaysa indhaha intay isku qabatay nafta saas uga baxda ilaa u naxariista nafta saas uga baxda how selfless ay hooyo ay tahay can you imagine sakaraadkaas xanuunkiisa ayadoo ku jirta waxay rabto weli inay itusiso maya hooyo tanba dhimashadaba oo xaqa ah si xanuun la-aan leh si iimaan leh si sharaf leh si qurux leh ayay nafta u bixi kartaa look anaa ku tusinaya I'm here in front of you hooyo intaas ka sharaf badan yaa xagee laga heli karaa yaa rabbi yaa hooyadaasaa ay dhashay aniga ilaaha u naxariista kartidaas hooyo leh ilaaha u naxariista ay dhashay how selfless hooyo awooddeeda arag dhimasho waaye dhimasho maxaa ka xanuun badan maanta dhimasho ilaahay ha u naxariisto cabsidii aan ka qabo dhimasho saasay iiga dhammaatay because naxariista inta ugu dambaysa hataa weli naxariis hooyo ii muujinaysa ii tusinaysa markaas waa markaan leeyahay hooyo macaan ilaaha ugu naxariistay ka bilaabato maanta caafimaadaan rabaa inaan ka shaqeeyo waxaan rabaa dadka markay xanuunsanaya nafta ka baxaysa ay rafaadsan yihiin inaan meeshaas u taagnaado aan joogo oo aan caawiyo sida adiga lagu caawiyey waxaan ogaaday qof adeega ah inaan ahay aan adduunkan u joogo inaan dad aan u adeego sidii ayada iigu soo adeegtay aniguna inaan dadka ugu adeega waxaan fahmay sababta adduunkan dhanba aan u joogo oo 11 ilmood ay dhinteen anigu aan uga badbaaday inaan adeegaan ayo dadkaan u adeego sababtoo hooyo adeegta dadka u adeegta ayaa ay dhashay ilaahay ha u naxariisto hooyadeeda ilmaheenna noloshooda annagaa gacanta ku hayna waxaa waaye dhalo aad gacanta ku haysad dhulka haddaad ku bajaysid adaa wada duduminaysid wada jajabinaysid ama maxaan ku dhahaa weli gacantaad ku haynaysaa ilaa glaaskaas meel uu u dhegmi kara aadaan u mahadsantihiin inaan waqti aad caawi ila qaadateen oo i dhegaysateen runtii
Facebook wax xun leh looma isticmaalo waxaan aaminsanahay in si fiican loo isticmaali karo oo dadku waxa loogu soo kordhin karo oo aad dadka aad noloshaada kula qaybsan kartid aad u sheegi kartid waxyaalaha fiican oo bini aadanka adduunka ka qaban kara marka my page anigu waxaan u isticmaalaa nolosheeda inaan ila qaybsado as an example as an example not to say maaragtay nolosheedu anigu it's the best life ama I'm the best person or not maya wax kastoo lagu yiraa ma suubin kartid ma yeeli kartid anigadaan ku hortaagan ayaa ku leh no waa la suubin karaa waa la suubin karaa waa la suubin karaa waa la suubin karaa heerkan hooyo ay soo gaarsiisay ilaa u naxariistay inta ii dhimanna aan gaarona ayadaa ka dambayn doonta inkastoo inta ay maanta ay joogin still riyadeedii aniga ayada aan ku riyoon jirnay inkastoo wax kasta ay tiri waad suubin doontaa aan suubiyey waxyaalo kaleetona insha allah waa sii suubin doonaa every time aan wax cusub suubiyana oo aan guul ku gaarana testimony ayay hooyo u tahay hooyo kastoo soomaaliya hooyo kastoo afrikaan hooyo kastoo caddaan waxay rabtaa ahaato testimony ay u tahay waa mahadsantihiin marka haystaas oo hooyo la-aanta markasto oo aan dhageysto waan ooyaa ha ila yaabin because waxaan la ooyaa hooyadeedaan soo xasuustaa hooyadeeda ayaan soo xasuustaa sida maxamed saleylaan asigana hooyadiisa asoo haysta qaada intuu usoo xasuusto oo codkiisa u go-aya waa dareemaysaa inuu ooy rabo marka dadkeenna waxaa hagaajin doona insha allah oo jid fiican ku ridi doona hooyooyin waaye hooyooyin ama ilmaha ay koriyeen ayaa insha allah wanaajin doona waan igu daahay caawo aadaad u mahadsantihiin sida sharafta leh oo aad maaragta waqtiga iila qaadateen oo aad ii dhegaysateen waxaana nii rajaynayaa khayr hooyooyinka pageka ku jirana umu anas abaya yes it's okay to cry anigu waxaan aaminsanahay ooyintu inay tahay calaamad fiican qof ooynaya haddaad aragtid waa qof niyadiisa saafi ay tahay waa qof weli bini aadanimada ku harsan tahay kan dhagaxa qofka dhagaxa keliyaana oynin dhagax ayaana oyninaya inta kaleeto dhan bini aadanku waa ooyaan marka hooyana waa u qalantaa ooyin iyo ka badan way u qalantaa and hooyada aniga inoo buugan qorayaa buug nolosheeda ku saabsan ayaan qorayaa buuggaas central teamkana waxaa waaye hooyadeeda ilaa u naxariisto maalmaha ka mid a insha allah shaneemaad tegi doontaayoo aad ka fiirsan doontaa hooyadeeda ilaahay u naxariista makawiila aan dhihi jira makawiilo neenaasteedana gorbachov aa la dhihi jiray gorbachov ayaa la dhihi jiray hooyadeeda ilaa u naxariista maalintii nafta ka baxdaan ogaaday bini aadan inuuna awood lahayn because never weligay ismaan dhahin
marka hadda 45 sanaan jiraa 4 ilmoodaan leeyahay keyga ugu weyn hadda 21 waay tayda ugu yar hadda 10 sano waa 11 ku socotaa wixii aan hooyadeeda la suubin jiray la u naxariistay ayakaan hadda la suubiyaa ayaan hadda la suubiyaa maskaxdeena uu dhiso sidii aniga maskaxdii igu soo dhistay idinkana halka waxa aan ila qaybsanayo caawa waxa waaye maskaxda ilmaha inaa u dhistaan iyo niyadda aad u dhistaan wax kaaga baxaya male nothing dhulur kaaga baxaya male timekaada cunugaada inaad siisilay that's all marka aadaad u mahadsantihiin waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysateen intii yaroo aan caawa waqtigan ila qaatay waxaan rajeyn doonaa insha Allah inaan waxyaalo kale tan aan ila qaybsado oo nolosheeda runtii ku saabsan ma aan nolol easy ah nolosha aniga aan soo maray mana noqon doonto mid fudud sababtoo dadka anigoo kaleeto noloshooda waa adag tahay qofka og meeshuu u socda safarkaasna diyaar u ah wax kasta uu kala kulmana diyaar u ah waxyaalo badan ayuu la kulmi doonaa laakiin iimaanka qofkaas iimaankiisa waa sugan yahay iimaankayga waa sugan wax kasta oo aan la kulmaa ma fahante diyaaraan u ah samaalintii noloshaas la isiiyey oo jidkii 11kaas ila dhalata aniga ay mareen la imarsiinin markaasaa chance la isiiyey adduunkan inaan wax ka qabto oo dadku wax aan u adeego oo nolol fiican ay ku noolaadaan ma fahante marka bishaaro cabdiraxmaan kulligiina aada u mahadsantihiin asoola adigna saasoo kaleeto fahima shukran abaay aada u mahadsan tahay haddii oo aad u aragteen sheeko fiican inay tahay it's the least I can do to share my mother with you inaan hooyadeeda nila qaybsado runtii sharaf weyn ii tahay idinkana waan ogahay hooyooyin saasoo kale inaad qabtaan marka shukran aadaad u mahadsantihiin amaal aada u mahadsantahay adigana ayaane insha Allah buugaas markuu soo baxo waad arki doontaa waxaan rabaa filin in laga suubiyo in Gorbachev nolosheeda ilaahay u naxariistay inaad filinka fiirsatid one day insha Allah haduu ilaahay nafta nagu simo shukran aadaad u mahadsantihiin kulligeena aadaad u mahadsantihiin waa inoo dambeyn doontaa insha Allah mar kaleetaan soo geli doonaa hadduu jiro topic aad rabi lahaydeen inaan nagala hadlo please waad soo bandhigi kartaan waad dhigi kartaan Faadumo se taas u aragtaan waan nagala hadli karaa haddii kaleetona spontaneously sidaan oo kale haddaan soo galo ayadoona waxba lasoo qorsheynin waa nagala hadlayaa nolosheyda iyo tan ilmaheyga aadaan maxaan ku dhahaa aad u mahadsantihiin khayran aan lii rajeeyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.